kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii ugu horeeyey saakay waa arbaco taariikhduna waxay ku beegan tahay 1 bisha luulyo sanadka 2026 wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. haddaba barnaamijka saakay waxyaabaha ugu waaweyn aynu kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah Trump oo la sheegayo in arinta Iran ay markaa meel xun ay gelisay. waa wareeray koox waxaa la joogta isaga waxa uu sheego kaliya aan war ku soo celinin. kooxdiisa waxa kaloo lagu tilmaamay inaysan xataa tala siin karin wasiiradiisii iyo waxa la joogo dhan odaga kaliya ayaa adiga amiir socoyley. haddaba marka sheekadan maxay ku timid ninkii Trump hadda waxaa leeyahay dagaal aan natiijadiisa la garanayn ayaa markan uu ku hoobanaya. waxaa soo kale dadka wax falanqaynaya ay leeyihiin dagaalkan waxa uu uga warwareeganayay Trump in uu kusoo jabi doono ayaa loo sheegay. haddaba hadda marka maxaa leeyahay dagaalkii ayuu ka shaqaynaya. Iran waxa uu leeyahay xal diblomaasiyadeed aan ku daynay laakiin way socon weysay marka sheekadeeda inaa iska soo afjaro. marka wuxuu bilaabay la tashiyadii yuu la tashanayaa. marka raggiisuu la tashanaya. raggaas marka iyagu wuxuu meeshuu asagu u socda le u raacaan. hadduu yidhaahdo Iiraana aadayaa aaday leeyihin ma iska daynaado nabad ma qaadanaa qaado wax kale ma dhahayaan. haddaba marka sheekada saakay soo korortay oo warbaahinta Maraykanka laga soo xiganayo ayaan idinla wadaagaya. haddaba saakay waxaa laga soo xiganayaa joornaalka la yidhaahdo Wall Street Journal ayaa sheegay Trump inuu daraasad ku hayo sidii uu dib ugu laaban lahaa dagaal ballaaran oo uu la galo Iran. haddaba waxaa la sheegayaa daraasadan dhammaystiran ee ballaaran ee dagaal weyn oo uu ku qaado Iran waxa uu kala tashanayaa wasiirkiisa gaashaandhigga ninka la yidhaahdo Hexeth iyo abaanduulaha ciidamada Maraykanka. haddaba jirada la yidhaahdo Wall Street Journal waxay leedahay Trump waxa uu hadda marayaa howlihii diblomaasiyadda in markaasi waqti badan uu siiyey. marka hadda wuxuu soo jeediyey Trump in markaa dadka isaga la shaqeeya uu u sheegay waqti kama dambaysa inuu qabanayo oo ah in xal diblomaasiyadeed la gaaro. haddii la gaari waayana uu hadda kasii shaqeeyo sidii uu u jabin lahaa ugana adkaan lahaa ciidanka Iran. waxaana uu u qabtay ilaa 18 bisha Agosto ee soo socota haddii Iran ay wax heshiis rasmiya ay gaari waayaan arrinta nuclearka iyo arrimaha la midka. waxa uu sheegay in dagaal ballaaran aan la huri doonin. oday marka baashi way la sii fogaatay waxaan inuu iska soo gabagabeeyuu rabay inuu sheekada iska soo afjaro. nimankii heshiisaa la gaaray sheekadu wadi. doorashooyinkii Maraykankana way ku soo socdaan November. baarlamaankii la soo dooranaa. baarlamaankan hadda suu rabo wax ugu sameynayo oo maaragtay wadwato waa soo dhamaanaysaa. mucaaradkii qabsanaya baarlamaanka sida la saadaalinaya hadda ninkaan marka khalaas marka wuxuu doonayaa sheekadii marka baashi way ku fogaatay. Iranna ninkan waxba ugama dhimayso buna adeerow saan iyo saan waxa ka dhaxeeya male. hadda wada hadaladii qadar meel loo socda iyo meel kale la garan lahay. Iran waxay taagan tahay war Hormustan iyo waxaan nagu mashquulinayna ee lacagteennii aan ku heshiinay nasiib beertayda wax ka gadanaya war miya lacagta annaga iskale meesha rabna wax ka gadanayna maba kaa gadanayna hadda joogta Iran waxa kaa gadanaynaba mal wixii oo dhan marka way isku jabmeen. hadda marka jiradan Wall Street Journal saaki waxay leedahay odaygii
dagaal aanu raalli ka ahayn oo loo sheegay inuu ku jabi doono ayaa u muuqdaa laleeyahay. dagaalkii hadda ka fakaraya maxaa samayn lahayd 8 ilaa 18 Agoosto ayaan qabtuu yidhi inay maaragtay heshiis aan ku gaarno. haddii heshiis la gaari waayo xarbun shaamil aan samaynaynaa, dagaal ballaarana ku qaadaynaa. oo hadda mid khafiifa maa lagu qaaday Iiraan, oo hadda mid sahlan maa lagu qaaday. wixii markab diyaarad xambaaraya kuwii ugu waaweynaa oo dhan loo diray. maxaa laga cunay? ma nuclear lagu dhufanaa markan, wax kale ma haline. marka sheekadaasu iyaduna saakay ayay soo baxday. haddaba waxyaabaha kale ee la yaab kale ee saakay warbaahintu ka hadlayaan waa yaabaysaa. Iiraan waxay tiri meesha tan Hormuz la yiraahdo sidii hore marnaba ma ku noqonayso Soomaaliya. maalmahan marka Mareykanka iyo reer galbeedku Faransiiska ugu horeeyo iyo dowladihii Carabta iyo dhanka Cumaan ay xodxodanayeen, waxay lahaayeen Cumaan dhankaaga la soo maraya dhankaaga. maalin hore marka waa idiin sheegay, waxaa yidhi Iiraan Cumaan indhehe u shidad. wariyaa ka joogay tiri nimankan ku xodxodanaya waa u jeedaa. hadday dad wax ka celin karaan kuwan kale wax ka celin lahaayeen khaliijka. adiga waxaan ku ballannay ku heshiinay canshuur in meeshaan laga qaado, xogaagaaga qaadato, armay taa kuu roonta. laakiin maalinkaa Maraykan iyo reer galbeed iyo isku dhiibtay cagahaga cirka u diraayt. sheekadu marka hadda marka waxaa soo baxay Cumaantii soo baxay. Cumaantii waxay wargelisay Maraykanka iyo saaxiibadiisa reer galbeedka. waxay tiri meeshaan in canshuur laga qaado maana war kala male. waa warkii marka Iiraan ay raacday. sheekada marka ninkii Trump ahaa baashi meel xulay la gashay. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu waaweynaa. wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm wuxuu leeyahay dalka la yiraahdo saldanada Cumaan waxay soo bandhigtay hindise cusub oo Maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka ay u gudbisay, kaasoo markaasi ah in markaa hantida ama lacagta lagu bixinayo oo laga qaadayo shirkadaha xamuulka marsiisanaya marinbiyoodka Hormuz ee isticmaalaya, in markaa Cumaan ay soo bandhigtay in la qaadayo canshuur. haddaba warkuu sii socday waxaa la leeyahay wargeyska la yiraahdo New York Times ayaa saakay soo saaray warbixin uu leeyahay iyadoo la soo xiganayo ila wareedyo muhiima ayaa sheegay in Cumaan ay si rasmiya Maraykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka ugu soo jeedisay inay la qaadi doono khidmad gaadiidka laga qaadi doono maraya oo shirkadaha maraakiibtu ay leeyihiin marinbiyoodka Hormuz. wargeyska Maraykanka ee New York Times wuxuu intaa ku daray in Cumaan dhawaan ay soo gudbisay soo jeedin rasmi ah oo ay ku qeexayso qorshe shirkadaha maraakiibtu ku bixin doonaan khidmadda isticmaalka marinbiyoodka Hormuz. sida laga soo xigtay ila wareedyadan ayaa waxay sheegayaan in saldanada Cumaan ay qayb ahaan ku salaysan tahay hababka marinka, in markaasi sida la midka ah meelaha kale ee la maro ee caalamka ee khidmadaha laga qaado. wargeysku wuxuu sheegay in Washington ay ka walaacday arrinkaas soo jeedinta ah oo markaasi ay doonayso inay hadda kala hadasho dowladda Cumaan. mas-uuliyiinta Maraykanku waxay rajaynayaan inay xaliyaan khilaafaadkooda iyadoo loo marayo wada hadallo farsamo ah. horey ayuu u sheegay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Iiraan in markaasi loo baahan yahay marinbiyoodka Hormuz maraakiibta maraysa in lacago laga qaado. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa isaguna horey u sheegay in marinbiyoodka Hormuz aanu ku soo laaban doonin sidii dagaalka ka hor u ahaa oo lacag la-aan la isaga mari jiray. waa tahay marka 2 maalin ka hor ayay ahayd Cumaan markay lahayd cashuur ma laga qaadayo meeshaan. laakiin nimanka Iiraaniyiinta markay la hadleen nimankii dhanka kale isku rogeen. hal maray waxay wareegeen intaas
360 wareegeen saasay u wareegeen waxay Cumaan taagan tahay meeshaan lacag laga qaadaa lacag laan ma afacay waa tallaabadii ay Iiraan ay markii hore wafdiga ugu dirtay Cumaan oo lagala hadlay waxaana fariintan Cumaan ay u diraysaa nimankan Mareykanka reer galbeedka warbixintan marka waxaa qoraysa oo leh mas'uuliyiin Mareykan ka soo xiganay jariirada la yiraahdo New York Times ee Mareykanka ku leeyahay ninkii Trump ahaa marka meel kasta uga furan markaad maaragtay iskibriso isla weynin muujiso haddee waa lagu tusayaa inaad bini aadam tahay weli maskaxda meel walbaa lagaaga furaya Cumaantii uu hadda agteeda la soo maraa lahaa Cumaantiina positionkaas taagid inkastoo Cumaan dal yar oo tabar badan lahayn uu yahay haddana waxaa ka dhex hadlaya Iiraan marka xaalkaas isaguna wararkii soo kordhay Trump waxa haystay ka mid yihiin sheeko kala iyadana soo baxday oo Trump madaxa xanuujisay isagana dalkii ugu weynaa wadamada khaliijka ee Saudi Arabia ayaa warbaahintii waxay leeyihiin wuxuu isu dhiibay Shiinaha macalinka weyn waa la fiiriyay inuusan tabar haynaan la arkay waxba celin karin waxba ka ilaalin karin nimankii Sacuudiga ahaa waxay u galeen Shiinaha waxa weligeed dhacay maaha in dal khaliijka ku yaala oo Mareykanku saas u maamusho inay Shiinaha waxaasoo ay isu dhiibaan arrin kaloo la yaab leh noqon odagii Trump waa wareer haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay wakaaladda wararka Turkiga ee yiraahdo Anadolu waxay leedahay Saudi Arabia waxay si rasmi ah iskaashi ay ula yeelanaysaa Shiinaha kaasoo ku saabsan arrimaha tamarta iyo waliba saadka iyo waxyaabaha la midka haddaba marka warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo midka Shiinaha oo ku kulmay Bakiin ayaa waxay ka wada hadleen in Sacuudigu diyaar u yahay inuu markan la shaqaysto Shiinaha wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal bin Farhan ayaa dhigiisa Shiinaha Wang Bi waxa uu shalay galab kula kulmay Talaadada ahayd wadanka Shiinaha magaalada Bakiin waxayna isla meel dhigeen in Sacuudigu diyaar u yahay shuraako inuu la noqdo dhinaca tamarta warshadaha iyo wax walba oo muhiim u ah Sacuudiga inay markaa kala shaqaysan doonaan Shiinaha kulankan wuxuu ka dhacay caasimadda Shiinaha ee Bakiin bayaan rasmi ah ayay labada wasiir soo wada saareen oo ku saabsan iskaashi buuxa Saudi Arabia inay hadda la yeelanayso dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo maalgashiga waliba oo ay shirkado badan oo Shiinaysa ay wada la shaqaysan doonaan xertii ninkii ugu weynaa kabiirkii dugsiga waa tegay macalinka weyn markaasay u taalaa Saudi Arabia xaalkay fahmi weysay sheekaday aragtay filinka waa ku socon waaye Chinese iska dhiib ganacsiga dhaqaalaha tamarta warshadaha maalgashiga shirkadaha halkaas ay aad Saudi Arabia odagii marka madaxaasi qarx odag marka dagaalkii Iiraan albaab badan oo ku furay sheekada kale barnaamijka inuu idinku hayno waxay ninkii Netanyahu ahaa yaa booqasho Malaysia wuxuu ku tagay koonfurta Lubnaan dal dhan oo Lubnaan la yiraahdo ayuu iska tagay dhulku ka haystaa zone amni u bixiyay meesha ay xuduudda ka soo gudbeen ay qabsadeen ciidankii meesha joogay ayuu meesha kula kulmay oo kula hadlay markaasuu wuxuu leeyahay annaga waxaan ictiraafsannahay Lubnaan haye Lubnaanna wayna ictiraafsan tahay haye
laakiin xisbullah iyo iiraan oo isla socda halkan makaan kuma laha anaga guureen. waxay leeyihiin marka haddii dowladda lubnaan aa ictiraafsan tahay sabab dhulkeeda aa u galaysid maxay aada meesha u tegaysid. waxyaabo la yaab lo waa ku jeesjeesid. dowladda lubnaan waa ictiraafsannahay, haddaa ictiraafsan tahay dee dhulkeeda maxaa u gasha. ciidankaygaa joogaan la hadlayo. xisbullah iyo iiraan meeshan waxba kuma lahana way tegayaan. inta xisbullah meesha ay joogaan ay khatar nagu yihiin annaguna halkaana fadhinayna. oday markaa shalay galaba uu booqasho qarsoodiya meesha ku tegay. haddaba marka aan idi tuso wararkii ugu dambeeyey ee arrinkaa laga qoray. netanyahu oo ku sugan koonfurta lubnaan wuxuu si cad u sheegay inaanay ciidankiisu ka bixi doonin halkaas inta xisbullaahi ay joogto sida uu yidhi. haddaba warbixintu way sii socotay. wuxuu leeyahay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo ka hadlayay koonfurta lubnaan shalay galab talaadadii ayaa xaqiijiyey in ciidankiisu ay halkaasi sii joogi doonaan inta xisbullaahi hanjabaad ay u dirayso israa'iil, isagoo raaciyey mowqifkeennu waa cad yahay, kama bixi doonno koonfurta lubnaan ilaa khatarta laga saaro halkaas. isagoo la hadlayay askartiisa ayuu yidhi waad ku mahadsan tihiin shaqada aada halkaa ka qabateen. lubnaan waxay aqoonsanaysaa israa'iilna waxay aqoonsanaysaa lubnaan. waxaan ku leenahay iiraanay iyo xisbullah ka baxa meeshan, meel dambe oo aad haysan kartaan ma jirto. waxaa jira laba dowladood oo madax bannaan oo doonaya inay nabad ku wada noolaadaan, waa israa'iil iyo lubnaan. ninkaa odagaa isaguna sidaasuu u hadlay, halkaasuu tegay. waxyaabaha la yaab kale, laba dowladood oo maaragtay nabad ku wada noolaanaya uu leeyahay waa is aqoonsannahay, haddana dal islaameed iska gelaya. marka waa sheeko wareersan waaye. marka barnaamijka saakay qodobadaas ayaynu kusoo qaadanay. bal adikuna fakar iyo aragti waxaa qabtaan noo soo qora. inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno meel kastoo aad naga daawanaysaan asxaabay, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.